بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فصل وسلم وكرم وشرف وعظم ومجد وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والدمات والممات عدد كمال الله وكما يليق بكماله من الأزلية إلى الأبد وعلى الأنبياء الذين من قبله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد ولا ليال علمدي عالمين تاهد أيا فدسا وحوي أفر يشان عالمينتي واوينيدو soomaalida ayaa goobta fadhisa marka waxa la iigu dhiibay aniga mindha odaynimo iyo inaan furo barnaamijka waxaan rabaa inaan ka hadlo ilaahay kitaabkiisa quraanka ayuu nagu faray marka hore in waalidka loo baari falo hayyan wa maytan in waalidka loo baari falo kitaabkiisa ilaahay nagu faray jalla jalaaluhu marka waxa aan hadda wadno wax kale maahan waalid aan u baarinimo falayno way waxa laga yaabaa dadka gobolkiis inaysan ba waalidkooda aqoon si rasmi ah waa laga yaabaa waalidka waalideynka marka la leeyahay laba shay la sheegaya laba waalid la sheegaya waalideyn waalideynkaas dadku inta badan boqolkiiba 99 waxay u arkaan aabe iyo hooyo inuu yahay sidaas waa ka gadisan tahay labada waalid laba waxa la yiraahdaa abul jasad waa aabe iyo hooyo laakiin laba waalid oo kala qabtaa oo la yiraahdaa abu ruux ruuxda waalidkeeda oo macallinkaaga iyo sheekhaga labadaasna qof aan ka dheregsanayn waalidkiisa ilaahay in loo baari falo hayyan wa maytan kitaabka ilaahay oo misxafka oo rumayna inay ku taalo ma jiro wax war ka soo celinayo ahlu tawxiidana ma jiro marka caawa waxaan isugu nimid labadii waalid midkood ama kulligood oo labadii abul jasadkaada aabe hooyo ahayd ama labadii abu ruuxaada macallinkii sheekh ahayd inaan maaragtay aan u baarinimo falno oon u ducayno oo maaragtay meelahan oo kale marka la isugu yimaado idaa ra'aytum riyaadul janna fartacuuha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam qaaluu wama riyaadul janna qaala xilaqu dhikri buu yiri dhikriga xilqadiisa weeye fiiri markaa meesha aan joognaa waa beer janno weeye ogaada sida nabiga maxaa tiraahdaa sida uga sugnaatay waa beer janno janno qofkii joogana waxa la yiri walahum ma yad'un wax alla waxay ilaahay weydiistaan ay wacdaan ilayeen waxa la yiraahdana walahum ma yashaa'un wax alla waxay doonaan ilayeen yaa dhacan saari kara xaqiiqadaas oo ged isku aadi kara waa aayadii quraanka iyo xadiidka nabiga meeshan oo kale waa mustajaabu dacwo waa beer janno hadda joogtana maxaa tiraahdaa qofku wixii uu ilaahay weydiisto uu leeyahay beer janno markuu joogo waxa kale oo haddana jirta ana jaliisu man dhakarani buu yiri macbuudku wax jannadiiba ka weynaa meesha yaala qofka ixusaya oo ixusiisanaya oo iga faalaynaya aniga rabbiya la fadhiisan ahay jannadii weyneed baan nala weyneed meesha waa ka baxday macbuudkeeni la fadhiisan ahay marka meeshan oo kale waalidkiya loogu baari falaya waa loogu ducaynaya waa maarta sadaqa loo bixinaya waxa weeye dadka isugu yimaadna waa dad baariyayna oo ajiibay kitaabkii ilaahay oo ilaahay ku faray in waalidiinta loo baarinimo falo diinta ilaahay qofkii ka warqabaana kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga ku taala waana ka dharagsan yahay marka walaalayaal arintaasan caawa meesha isugu nimid marba inaan ku dheeraado
waxaan iyo wax kasto maxaa tirahdaa saasay ku saabsan tahay hadhow iyo hadeer iyo mar dambe iyo mar soke waa baarinimo loo falayo waalidiintii loo falayo mashaaikhdannadii oo abu ruuxeenniina oo waalidiintiinnii ayaan meeshaan ku xusaynaa kitaabka ilaahay meelay ku leedahay sunnada meelay ku leedahay caqiidada meelay ku leedahay wax walba wax iska cad oo bannaanka yaalla weeye marka walaalayaal ijaabadana sidaasay tahayoo xilaqu dikri inay beer janno tahay nabigaa sheegay beer janno qofkii joogana mustajaabu dacwo inuu yahay ilaahay baa sheegay qofku jannada gala walahum maa yaddacuun walahum maa yashaa'uun marka waxaa weeye waa beer janno ilaahay lagu baryo beer janno ilaahay lagu baryo weeye wax kale ha ka fiirin haddaa mustajaabu dacwo rabto xilqada dikriga imaw ee ilaahay ku bari maxaa tiraahdaa jannooyinku adduunka kuwaa yaalla maa bayna baytii wa mimbarii rawdatun min riyaadiljanna buu yidhi nabigu mimbarkayga gurigayga dhexdooda beer jannaa ku taalla waa rawdada haddaa ilaahay ku soo bariso waa mustajaabu dacwo dhagaxa oo xajarul aswadka ah maxaa tiraahdaa oo kacbada maxaa ku jira oo maaragtay geeskeeda ku jira markaad madaxa la gasho waxaad ilaahay ka barisaa waa mustajaabu waa dhagax janno laga keenay maxaa tiraa nabiga sallallahu alayhi wasallam jannadu makhluuqoo dhan wuxuu farac ka yahay nuurkii nabiga laga abuuray marka jannada iyo carshiga iyo kursiga iyo wax walba nabigay farac ka yihiin nabigii jannadu faraca keed markaad la joogtana mustajaabu dacwo weeye xaggee ku taallaa ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آية البعد ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إلهي جل جلاله نبي كيوي ومستجاب الدعوة مركا أتكتو فيري وحكلا إذن تسيا نبي لفتي سكلية ماهن وحكلا جرا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بان نبي يقول من ينكر منا أحد أنك الناموذ إنكر يا كيوي قبر إنه قد جنة هاي أما بير جنة هاي يا إنكر كرا وإحنا بين يا إنكر كرا وكو أنبياء إلهي يا رسوش إلهي يا أولياء إلهي يا صالحين إلهي قبورهم وروضة من رياض الجنة سيدي النبي كشيء لا تبديل لكلمات الله كلمات كإلهي يا رسول كيسة اتبدل يسمى لهم حيل النبي لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى إلهي والجس محاسب ما أوصي شيء إلهي ده أوصله إلهي وشيء القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر النبي يا أنبياء كلا يا رسول كلا يا أولياء إلهي يا صالحين بير جنة ويكل جد بير جنة هذا جوكته ود إلهي كبر سوا مستجاب الدعوة ولا جنوين كأدون كيالله كميته أدون كجا أنت مدة آخر الجارين هذا إلهي كبر سوا وبير جنة وحلقه جي كوا ده يا وعبديان نبي قفكي أتجو هالكاس إلهي كبر ماشي إلهي يري ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي بايري لوجدوا الله توابا رحيما وحي هلي لهايين إلهي إنه أقد توبات أقبله تجد أي تجد نبيكم ماشي أو كسوجياي أقولنا نحرسته ماشي إلهي يري قلا وحي لا ذا وعبده هذا النبي آذان صلى الله عليه وسلم هذا أولياء هذا ما عبده إنه ما عبده عبادته يسنقون عبادته التضرع والخشوع مع اعتقاد الألوهية تبع ليرا شرعك شيء إن التضرع ده أو خشوع ده أو سيارته أو أيارته أو كتوشصه هذا اعتقاد إنه شيء كانوا إلهي هاي وإلهي كسواري قف اعتقاد أنت إلهي صار النبي محمد باو سريه أنت إلهي أبوري إنه إلهي هي اعتقاد إنه نجمدها قف التوحيد كهو اعتقاد ماله أنت كلنا وكوسيسا ورهكاه جننا
beerta janno oo nabiyaashu ku sugan yihiin inta tagtaan ilaahay ku soo barisaan beerta janno awliyadoodu ku sugan tahay inaad inta tagtaan aad ilaahay ku soo barisaan beerta janno awliyada ilaahay iyo saalixiintu ay ku jiraan qabridoodu waa beer janne inaad ilaahay ku soo barisaan ha ka hooginina waa lagu diray xagee lagu diray awliyada yaa ayyuhalladhiina aamanu taqullaah wa kunuu ma'a saadiqiin dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo marka hore ilaahay ka baqa labo awliyada ilaahay micigooda ahaada xayyan wa maytan meel alla meeshaad ay joogaan ilaa waa beer janno meeshay joogaan be oo midkii maxaa tiraahdaa noolna dikrigii ilaahay oo mutalabis iyo ilaahay yiri ana jaliisu man dakarani kii kalena beertii janno joogaa oo xijaabta yaan la idinka hoojin barwaaqadaas meesha taala ka doonta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh